waan gartay in urnaantu waa arin aad u muruga badan marka waxa kale la isweydiinayaa Cibarow oo ah su'aasha taagan maxaa sii horinaya maxaa sii badanaya waayo markuu dhibku sidan yahay oo kaleeto dad fara badan baa ku qoos qaadan lahaa baa leeyahay laakiin hadda inay tahriibayaashu ay sanadba sanad ka dambeeyay ay ka sii bataan tusaalahan baritaan la sameeyay labadii sano ugu dambeeyay waxay labadii sano ugu daraa laga soo bilaabo 2017 ilaa 2019 ku jirno waa labadii sano ugu badnaa tahriibayaasha ummadda Soomaaliyeed ay galaan marka maxay tahay marka aad u aragtaa inay yihiin waxyaabaha sii kordhinaya in tahriibayaashu ay sii bataan isla markaana tiradoodu ay sii kobcdo waxa sababay saddex shay sababaysa saddexdaas shay oo sababaysa waxa koow ka qofku inuusan haysan nolol uu ku noolaado oo satisfied laba inuusan heli karin waxbarashadii agabka ah oo u baahnaa qofka bini'aadamka saddexna inuusan heli karin bi'adii shaqo ama dhaqaale abuure dalka ka jiri lahaa saddexdaas marka waa saddexda qofka bini'aadamka noolaha necessary u ah dhalinyarada waliba saddexdii mar hadduu waayo waxay sababaysaa qofkan inuu ka mujaahiro meesha uu ku nool yahay taas markii aan sii kala dhigdhigno waxa koow ka ahan leenahay dagaalada dalka ka jira sii kordhay sanadba sanadka kaga dambaysa qofkii oo ku dhashay xilli dagaal la jiraan oo aan hore u soo arkin nolosha iyo nabadda dalka ka jirta iyo shuruucda caalamka la iskaga rabo nuusan aqoon gooni u lahayn sidoo kale iyadoo uusan u saamaxaynin inuu qofkan markii uu tago dalkii uu ku noolaa dal ka duwan culturally iyo dhaqanli inuusan la qabsan karin dhaqanka ka jira adduunka oo always ka duwan yahay dhaqamanka guud dalka kale ka jira adbadu ma santa waan kartay Cibaar waxa la isweydiinayaa oo dadka inta badan ay isweydiiyaan dadkii waa dhimanayaan hawbataan dhalinyarta adu ka dhawaajisay marxaladaha kala duwan ku sugan haddana waxa la isleeyahay war maxaa dadkan waxaan u sahlaya sababta waxaan lacag baa loo isticmaalaa malaayiin baa soo gasha dadkii waxa dhacday inay qarash laan qofna meel ma aado dad baa laga yaabaa inay ku baxdo halkan ilaa iyo South Africa lacag gaaraysa $4,000 oo waliba $4,000 xabsi u galay rafaad u galay dad baa lacagtooda iska daayay noloshooda markay waayeen xataa kaadidii bini'aadanka ay isticmaaleen qisad dhacda waxa jirtay marka mid inuu miil wareysanay uu yiri walaalkay baan ka qarsaday taas xataa laftigeeda magaceeda ku soo cilmiinay marka maxaad leedahay waxa u sahlaya inay marka haddana meesha tagaan maxay tahay oo ugu waaweyn والله وسؤال مهمة لeh horana aan ugu sameynay ta'kiidin sida aan hore kugu sheegay hay'adda UNHCR dalka South Africa cilmi baaris ku sameysay arintaas qofka Soomaaliga markuu South Africa tago example markaan u soo qaato dawladda South Africa ma siisa ceero ku noolaada iyo guri ku noolaado iyo xiraq qaxooti u galo waxa la siiyay waxay tahay waraaqad oo dalkaas ku joogi karo oo u sameynaysa ogolaansho qofka inuu wax barto shaqaysto wax gato noolaadana haddana waxa isweydiin mudan dadkii qaxootiga ahaayo nabadgelyo doonka ayaa waxay noqdeen dadka labaad ee dhaqaalaha dalkaas horumarintooda ka qayb qaadanay ganacsiyo almost intaasoo milyan oo dukaanay ka fureen dalka South Africa marka waa la isweydiiyay waxa la yiri dadkan dalkay ka yimaadeenna waa dal sabool ah dhibaato fara badanna ka dhacday oo masiibooyin fara badan ka dhaceen magangelyo doonayna ahaayeen inay wax soo kordhiyaan maahane wax naaqosin uguma sii jeedno waxaan intay ka yimaadeen research la sameeyay cilmi baaris la sameeyay waxa soo cadaatay qofka Soomaaliga markii uu gurigiisa dalkiisa ka soo tagaayo wuxuu agab ama guri ku lahaa inuu soo gaday waalidkii iyo awlaadii la dhalatana hantidii gurigii ay ku noolaayeen ee familko dhan ka dhaxeeyay in hal wiil inta loo qooro guriga la iska gadayaba waxay ka mid tahay qaybtan ku sheegayo nadabaad guurinta lagu hayo dalka Soomaaliya markuu agabkii iyo gurigii cid ay ku noolaadeen ninkii uu gado oo cidii geedo hoostood iyo maxaan ku yiraahdaa shiraaciye ay ku noolaadaan ayuu qofkii lacagtii gurigiisii oo ku dhashay oo familkii ku noolaayeen iyo wuxuu gelinayaa riski gacan nin shakhsiya oo san weligiis arkin lagu sheego magac la yiraahdo broker muqallas kaasoo inta badan xataa qofka markuu wadaay aysan is arkin oo laba wada ay ku kala socdaan
marka lacagtaas intaas la eg markuu qofkaas qarash gareeyo oo jidkii ku dhiibo oo adduunyadii ku rafaado oo xabsiyo ku galo oo inta badan laga yaabo inuu ka dhintaba asoo sii socdo yaa markuu meel kala tagana wuxuu ku sii abuuraa ganacsi qofkii noocaas ah marka waxa isweydiin mudan lacagtii iyo gurigii cidii uu ka xaraash ma soo celiyaa wixii sababtoo ah badaw maray Liibiya uu ka dhacay Suudaan uu maray Ethiopia uu sii maray waxa soo dalaho maray lacag ku wada baxaysa badii riski uu naftiisa sii geliyo cidii lacagtii ma hayso haddii uu noolaado tago dalkii loogu talagalay oo u socdo targetkiisi ah qofkii lacagtii dib inta u soo gudo cidii gurigii ma u gadaa waa su'aashii maya qaybta nabaad guurinta Soomaalida marka laga hadlayo waxay ku tusaysaa ninkii dhibkaas waalidka ay ku direen waxa koowaad uu sameeyay waa inuu waalidkii dalkii kala soo baxaa oo waalidkii soo saaraya waalidkii dalkii ka soo bixin inuu gurigii dib u dhis iska dhaaf waan gartay gabdhihii iyo wiilashii la dhashay iyagiina leeman u wada xareena wada familkii oo dhan cidaas waa guurtay marka waxa kale laga yaabaa familka ku dhagan inay Soomaaliya aysan ku cimri qaadan familkii hore inay ka maseeraan laga yaabaa ay dhahan reer hebel naga qiimo badan iyaga safar sameeyay oo dalkii ka guuray marka almost waxa way dhaqanka guud oo meeshaas ka soo socda waxay ku tusaysaa in dalkii la nabaad guurinayo oo dadkeenina laga raray waxaana la nacsiiyay dalkii hooyon anaga lahayn waxaana la jeclaysiiyay dalaanan lahayn oo qaxooti ku nahay oo waliba u dhimanayna inaan gaarno ma ku helina waliba si easy dalkaas oo nala jeclaysiinay waxaan u dhimanaynaa in maanta qof Soomaali inta laga qaado America la geeyo qofkaas marka waxa laga yaabaa sinjigii Ilaahay u dhalay inuu ka guuro walaashiis inuu yiraahdo xaaskaygi waaye hooyadiis inuu yiraahdo aniga qaba sharciyan iyo diiniyan wax ku banaan maan totally qofka bini'aadamka dignitygiisi sharaftiisi iyo Ilaahay meesha uu ka soo jeediyay yaa laga yaabaa sometimes inuu inkiraba absolutely marka taasa waxay sababaysaa saddexdii shay oo ku sheegay qofka ah inay sii kororto maalinba maalinta ka dambaysa in qofkii dalka uu ka sii dhamaanayo